Sida ay caddeeyeen taariikhyahanada adduunka, magaalooyin ku yaala xeebaha Soomaaliya waa kuwo aad u fac weyn oo soo jiray qarniyaal badan. Magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmooyinka Xamarweyne iyo Shaandani, waxaa la rumeysan yahay in ay ka mid yihiin kuwa ugu qadiimsan dalkeena. Waxaa xamar yimid qarniyaal badan ka hor dad watay ilbaxnimooyin kala duwan, qaar u yimid ganacsi, qaar fidinta diinta Islaamka iyo wax la mid ah. Waxaa jiray dhismayaal la helay oo dhulka hoostiisa ah, raadadka guryo, maacuun iyo masaajidyo soo jiray xilliyo aad u fog. Mustafa Cabdullaahi Fayruus waa agaasimaha Machadka Daraasaadka ISOS, sidoo kale waa bare ka tirsan Jaamacadda Muqdisho oo dhiga maadada barashada taariikhda Soomaaliya. Waxa uu aaminsan yahay in Muqdisho ay ahayd deegaan dad ay degan yihiin ka hor dhalashada Nabi ama taariikhda miilaadiga ka hor. magaalada Muqdisho taariikhdeeda marka dib loo raaco waxay ka mid tahay taariikhaha kala duwan baadhis ku filan aan lagu sameyn raadraacyada la hayo aan dadaal badan la gelin sidii loo heli lahaa. waa magaalo qadiima xilliga ay soo unkantay waxaa lagu qiyaasaa ilaa 2 qarni ka hor dhalashadii Nabi Ciise in magaalada la soo degay ama ay aasaasantay hadda la rumaysan yahay. laakiin haddii raadraacyo badan lagu sameeyo oo dhinacan muxuu ahaye la raadiyo aasaarta iyo raadadkii hore oo u baahan in dhulka la qodo oo la baaro, waxaa dhici karta in xilligaas ka hor xataa in la deganaa inay soo bixi karto. Xildhibaan Khalid Macow oo isna ah bare sare oo wax ka dhigi jiray Jaamacaddii Ummadda Soomaaliyeed ee Bersamaadkii, haddana ka mid ah macallimiinta Jaamacadda Ummadda, ayaa tilmaamay in Muqdisho ay ahayd magaalo xiriir qoto dheer ganacsi la lahayd dalalka Shiinaha, Masar iyo Indiya, iyo sidoo kale dalal kale Carabta ka tirsan wixii ka dambeeyay qarnigii 10aad ee miilaadiga. waxay lahayd Chinese la lahayd oo wax loo dhoofin jiray, waxna laga keeni jiray. waxay lahayd dhulkan Carabta la lahayd maartay Masaarida iyo Syria iyo kuwa kale badan maartay yeel lahayd. magaalada ganacsi caan ku ah waxa la dhihi jiray maartay loolkii maartay badda Hindiya yaa la dhihi jiray. waxay dhoofi jireen kalluunka laga dhoofi jiray, dharka laga dhoofi jiray, lafaha maruudiga laga dhoofi jiray, maqaarka waxa laga dhoofi jiray, ugaarta laga dhoofi jiray, shabeelka oo kale yaa laga dhoofi jiray. magaaladan dharkii dhoofi jirtay oo aliindiga maartay yaa laga dhoofin jiray. waxa laga dhoofin jiray kabaha, maqaarka laga dhoofin jiray, xoolaha laga dhoofin jiray. maxna waxay magaalo aad u prosperity badan ah. imaatankii markii aan dib haddaan u noqdo taariikhda markuu hadlayo ninka Ibn Battuta markuu hadlayo kale wuxuu leeyahay waxaan soo degtay magaalo dadkeeda ay aad maartay ugu fiican yihiin, soo dhaweynta ugu fiican yihiin. magaalo raashinka lagu cunaayo uu aad u badan yahay, 3 waqti iyo cunto la cunaa. wuxuu leeyahay cunto badan waa la cunaa, beeskiisa bariis uu yahay, hilib, kalluun ama malaay iyo macnaa hilib, qudaar iyo la cunaa. taasna tusaalaheeda waa la arkay markii hadda magaalada la sii faagayo waxa laga helay laf geel maartay yaa laga helay. xadaaradeeda ku dhisay waxa arkaysaa magaalada inay duugan tahay. masaajidda iyo malcaamadaha lagu barto diinta Islaamka ee Muqdisho ayaa ka mid ah dhismayaasha jira ilaa xilligan hadda aynu joogno. haddaba goorma ay diinta Islaamku soo gaartay xeebaha Soomaaliya? Mustafa Cabdullaahi Fayruus waxa uu sheegay in taariikhda la hayo ay muujinayaan in Islaamku uu soo gaaray xeebaha Seylac, Berbera, Muqdisho qarnigii 1aad Hijriyeeda, xilligii muslimiinta ay soo gaareen dhulkii Xabashida haba kala dambeeyaane. haddaba ma jiraan cadeemo la hayo oo muujinayo taasi. ada kaleeta markaan Muqdisho islaamkeeda ka sheekeynayno raad kaleeta ama markhaati kale weyn baa jira. qubuuraha Muqdisho la baadhay ee laga helay waxaa ka mid ah qabri ay ku dul qornayd taariikhda qofkii dhintay lagu aasay. waxaa kaloo ku dul qornaa bismillaahir rahmaanir rahiim. sanadku wuxuu ahaa 101 hijradii bishii Jumaadul Uula, xilligii la aasay la qoraya Jumaadul Uula 22keedii casr maalin sabti ah in la aasay. qof dumar ahayd magaceedii baa ku qoran, taariikhdii lagu aasay baa ku qoran, in casr maalin sabti ahayd baa ku qoran. marka waa sanadkii 101 hijrada.
qarnigii koowaad ee marka hijradu wuxuu dhamaaday iyada oo ummad muslimiin ay joogto magaalada Muqdisho طبعا qabri kale oo qadiima isna jiray oo isna saas oo kale taa 138 hijradii isna qof kale oo dumar u ahaa labada qabriba laba qof oo dumar ay ahaayeen halka waxay cadeyn u tahay marka in bulsho muslim ah ay ka hana qaaday magaalada Muqdisho intii uuna dhamaan qarniga koowaad ee hijrigu ila 101 qarnigii labaad baa bilowday waxa kale ku tusinaysaa hadii uu ahaan lahaa qofka qabrigiisa la heli lahaa qof rag ah waxa laga soo qaadi karaa inuu yahay qof soo hijrooday laakiin markii uu yahay qof dumar ah waxay ku tusinaysaa in bulsho ay degan tahay ilaan markii rag iyo dumar iyo caruur dumarku maaha dadka ugu horeeyay ee soconaya laakiin in bulsho muslimiin ay ka hana qaaday magaalada Muqdisho qabo Professor Cabdalla Umar Mansuur oo ah afyaheen taariikhda Soomaalida aad looga yaqaan waxa uu ku xusay buugiisa taariikhda iyo bulshada Soomaaliyeed magacyada labada habeen ay qabriyadooda la helay oo ku sheegay Faaduma bintu Abdisamad Yacquub oo ay geeriyootay maalin Sabti ah bisha Jamaadul Awwal 101 Hijriya iyo Alhaajiya bintu Maqdam Muhammad ay geeriyootay 5 Dulxajja 138 Hijriya waxa isna doodaasi xoojiyay Maxamed bin Ali odayaasha reer Faqi ee degmada Xamarweyni oo aan la kulmay waxa uu soo qaatay qiso dhacday mar boqoradii Carbeed ee Muqdisho soo maray midkood oo doonayay in culimo barta waxyaalaha asaasiyaadka islaamka xamar loo soo diro si ay dadka u baraan taasi ay Soomaalida ay diiday kuna faantay in uu islaamka soo gaaray qarnigii koowaad hijrada haddaba sidee wax u dhaceen waa ka Maxamed bin Ali oo ka hadlaya wuxuu yiri laba xamar u sheeg in loo keeni doono qudaa Soomaalida dad wax baro sidii miidka loo dhaqo sidii dhaxalka loo qaybsho sidii ihkaanta loo nadarka loo sameeyo marka wal isku yimid waxa istaagnin la jira Sheekh Muco Abu Bakar wuxuu yiri anaga haddaan Soomaali nahay ina anaga dad wax barma anaga ma nal barayo marka yiri dhageyso suldaanka wuxuu soo fiiri in dad qadaa u keeno ha uu yiri ka soo qabto yiri 67 hijriya xamar wuxuu ahay tuulo 149 hijriina waxay noqotay magaalo hala Soomaalidu waa nooleed waan isguursan jireen waana la dham jiri miidkeena waa dhaqan jirnay waxna waa qaybsan jirnay cidna uma baahneen marka hadda ana la leeyahay dad baa la soo diraya maxaa dhacay marka liida arinta day meesha gaartay ninkan ihkaanta oo isku seegay oo Soomaaliga ah oo leeyahay cilmi fiqhi ay mas'ala ana ka jawaabaya warqad laga soo qoro imtixaanka haduu ku faa'iiso cid ma soo dirayo haduu imtixaankaas ku faa'iisin quwaa la soo diraya marka waxa dhacay in loo fadhiisay afar qaadi oo Arab ah iyo Sheekh Muhammad Abu Bakar waxa imtixaanka qaaday مفتي اليماني مفتي الزنجباري عبيد الله شريف عبد الله وعلي فقد فاز فوزا عظيما الشيخ معوم مع ابو بكر الصومال اساكو نجحي اسان حمر لكاني دارت انا لغو على مصاري مصور كيس حتى ويالا مركي العلامه ساري تاريخيا masaajida qadiimiga ah Muqdisho ku yaal waxa kamid ah masjidka Faqrudiin ee degmada Xamarweyne masjidkani waxa uu kamid yahay todobada masjid ee ugu facweyn qaaradda tan Afrika waxa mixraabka masjidka ku qoran taariikhda la dhisay masjidka oo ah 10 dambe bisha Shacbaan sanadkii 667 Hijri oo ku beegan 27 Abriil ilaa 6 Maajo sanadkii 1269 miilaadiga halkan aan joogno waa masjidka Faqrudiin oo kamida masaajidada ugu qadiimisan ama dhismayaasha ugu qadiimisan magaalada Muqdisho sida ay taariikhyahanada Xuseen waxa masjidkan uu kamid yahay dhismayaashii ugu horeeyay ee magaaladan laga dhiso taasoo muujinaysa in magaaladan ay tahay magaalo xadaarad aad u weyn sida ku qoran taariikhda looxa ku sawiran mixraabka ee masjidkan waana taariikh aad u fog marka laga hadlayo sida ay noo tilmaamayaan taariikhyahanadu masjidkan minaaradiisa si wanaagsan hadda uma muuqato oo lama arko waxa qariyay gidaar dugsiga Qur'aan masjidka ka dambeeya mana jirto cid si gaar ah ahmiyad u siisa daryaalka masjidkan qadiimiga ah masaajida kale ee taariikhda facaweyn ah waxa kamid ah masjid jaamaca Xamarweyne waxa la bilaaway dhisida masjidkani sida ku qoran dusha albaabka minaarada masjidka kooda Muharram 636 Hijri oo ka dhigan
14 Agoosto 2038. masjid jaamaca Xamarweyne marka aad gudihiisa waqti ku lumiso waxa ku soo baxaya in Muqdisho ay lahayd taariikh muhiim ah oo dad badan aanu ku baraarugsaneen. masjidkani waxa dhulka caadiga ah hadda la maro uu ka hooseeya qiyaastii 6 mitir waxa ay u muuqataa in markii la dhisayay oo hore uu dhulka la sinna. masjidka ayaa waxa la aaminsan yahay in ay dhiseen beershiyiintii waxa uu u muuqaal eg yahay masaajidyo kale ay ku dhiseen meelo kale ee geeska Afrika ah. Aweys Cali Boolay waxa uu muddo 30 sano ka badan uu maamule ka ahaa masjid jaamaca Xamarweyne waxa aan kula kulmay masjidka gudihiisa. horta masaajidka meeshan kaliya ma aha asaaska masaajidka waa xagga micraabkan waa arkaysi masaajidkan waxa dhiseen sida la sheegayay qola Shirazi Iran way mugta. haddana waxaan idinku wareejin doonaa wariyaheena Maxamed Ibraahim Macalimo oo halkan noo ambaqaada barnaamijkeena. masjidka Arbaca Rukun waxaa si weyn ugu baaba'ay dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya oo reer ka mid ah dadka gudaha ku barakacay ayaa sanado badan waxa ay ka dhigteen hooy. hase yeeshee waxaa dib u dhis ku sameeyay oo bilaabay 2016 Turkida inkasta oo naqshada la raacay iyo agabka dhismaha la isticmaalay badankiis uu ahaa kii hore ee masjidka. dhismayaashii qadiimiga ahaa intoodii badnayd waa kuwo u sii baaba'aya daryeel la'aan, kuwo kale waxaa duminaya oo ku bedelaya dhismooyin cusub iyo goobo ganacsi dad ganacsato ah oo dhaqaale doon ah oo iibsanaya dabadeedna burburinaya. haddaba maxay ka dhigan tahay ilaalinta dhismayaashaasi qadiimiga ah? dhagax kasta oo guri Xamarweyne ku dhisan qiimo leh marka in la dhowro oo la badbaadiyo la keediyo la xanaaneeyo wax maxaniisa tahay taariikhdeenu aan dhoornay ilbaxnimadeenu aan dhoornay ee kamid tahay maxaa yeelay guryaha cusub maartay shay ma mesela Soomaaliya ma dal cusub maaha. Soomaaliya inuu dal qadiim yahay xadaarad lahaa soo jaray taariikh lahaa guryahan qadiimka waxaa ku dhex jiro aqoona ku dhex jirto wax badan ku dhex jiro waxa arkaysaa kutubtii oo baqtuutaadkii carabiga ku dhex jiro Soomaaliya inay wax qori jirtay waqti aad u dheer yaad arkaysaa oo taariikhdeeda ku kasiin gacan lagu qoriyaad arkaysaa waxa ku dhex jiro qalabkii la isticmaali jiray yaa ku dhex jiro waxa arkaysaa xilligaas guryaha sida loogu noolay aad arkaysaa waxa arkaysaa albaabidii la sameyn jiray oo zakhrafadaha ma artay engraving lagu sameeyay gacanta lagu qorqoray yaad arkaysaa waxa arkaysaa qubuurta laftirkooda markii arkaysaa qaabka macnaa ay u sameeyaan waxa arkaysaa looxul qabri aad arkaysaa oo xilligii dadka ay geeriyoodeen xataa maarta aad arkaysaa waxa lagu keediyay keed aad u weyn marka gurigaas waxa waa marka uu ka dumaba taariikhdaada ayaa khayb baabaaday jiritaankaaga iyo ilbaxnimadaada ayaa baabay marka waxay u baahan tahay in sidoodii maartay lagu dhooro sida uu qabo gudoomiyaha degmada Xamarweyne ee xilligan Cabdulqaadir Maxamed Cabdulqaadir noloshii iyo horumarkii dadka degmada Xamarweyne mar kale ayay soo laabanaysaa. dadkii waxay soo laabanayaan yani tartiib u soo laabanayaan waxay bilaabeen in guryahoodii ay dayactir ku sameeyaan isla markaana guryahoodii ay kireeyaan maanta wuxuu maraa in lagu kireeyo guryaha lacag aad u fara badan dalalka qaarkood xitaa anaga ka qaarisan Xamarweyne qolkii uu yaraa maanta waxa lagu kireeynaya halka qol iyo masquul $150 lagu kireeyna waxa sabab u ah taasi amniga la helay iyo dadka Xamarweyne degan oo ay yihiin dad oo yani nabadgelyada aad u jecel dadka aan ku dhibin waxyaabaha degmadan ay yani miisada ama waxyaabaha gaarka ee awlaadaha waxa kamid ah in aan dadka lagu dhibin waxa ku arkaysaa dad waalan waxa ku arkaysaa xayawaan far badan oo ku daadsan sababta dad badan isweydiiyaan eeyaha iyo dadka waalan waxay u badan yihiin wax kale ma ahan dad deegaanka degan ayaa ah dad aan dhib badnayn oo xayawaankiina aan dilaynin qofka waalan aan dhibaato u geysanaynin sidaas dadkii ay ku badbaadeen markay ogaadeen intaasna degmadan saasay ugu soo hoydaan fadlan haddii aad ka heshay barnaamijkan iyo muuqaalkani quruxda badan biliis rukumo Cumarinho official oo ka dhigo wehelkaaga Cumar Nuur Xaaji Cumarinho.